madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garanaya shir gudoomiyaha shirka toddobaadlaha ee golaha amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaayeen taliyaha ciidamada booliiska koonfur galbeed ee Soomaaliya saraakiil ka socda ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa koonfur galbeed iyo saraakiil kale waxaana looga hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga deegaanada koonfur galbeed wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed ee Soomaaliya Isaaq Cali Subagle ayaa sheegay in kulankan ay warbixino la xiriira amniga ku soo gudbiyeen saraakiisha laamaha amniga koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo wasaaradda suurtagalay antani qobsooma shirkii amniga oo asbuuc lahaay oo arba walba ana la qobada jaray oo la ku hadlahay arrimaha amniga walaagii qabsoomi iyo walaagii qabsoomoy iyo macnaha si oo amniga liin dardar galiifadi geekamay nin shir gudoomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo shirkani shir gudoomiyay shirkaas oo geeka ku duunay shirarkii hore oo aanu ku muhiimsanay oo diiradda la saaray arrimooyin badan oo sugidda amniga guud ahaan deegaanka koonfur galbeed gaar ahaan macnaha eerida oo macnaha isku socod yiri sidii macnaha leen furufadi sidii cadowgan oo wadanka dhibaateeyay go'doomiyay macnaha uu toolees ka haysay oo talaabo leen qaado fadi howlgal wada jir ee leen fuliyay fadi ya macnaha yala ku hadal guud ahaan iyo intii dardargeli sugidda amniga la xooji wada shaqeynta olaamaha amniga intaasan ka muhiimsanayti waana shirkamaha ka dhamaaday si guul insha Allah ta'ala marroona may bilaawdo doona walaalwalaagiba oo go'aameel hasaari fulintii hoob ilaahir wabillahi tawfiiq ugu dambeyn madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa faray saraakiisha kala duwan ee ciidamada inay dardargeliyaan howlaha lagu sugayo amniga deegaanada maamulkaasi Farxay Maxamuud Yuusuf Samni TV BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama accountkiisa Daarasalaam Bank haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga payc